السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى أخيارتا وان إدي السلامي بعد السلام ما أنت وحان ربا موضوع هنا كهدلو صوماليا موضوع صوماليا لدهو صوماليا حل كيدو محو نقونيا صوماليا سيدي وحد الله وضا سيادة وحلو مامولايا قبيل سيلو وقود بكرا صوماليا دي قلول بقبيل كيدو بهورتا يا عاشا صارتا او دي يعني نوال بمركو ماشي مادو وحودا هيا أنومبا ماشا توركا أنومبا وحان دونا كقابان كرا أنومبا وحان دونا سامين كرا لكن كل يدانو فكرة كدوان بانا من سنة هاي دالكنا ولا ودليا مدحوينو شخصي بو كنقونيا رئيس الوزراء شخصي بو كنقونيا لكن waxa wuxuu dhismayaan ama waxay ka baaburayaan waa dad Soomaaliyeed waa dhul Soomaaliyeed waa shanta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba waa meesha kaliya ay ku hamiyaan ay dhahaan dhul Soomaaliyeed baanu leenahay dhul baanu leenahay af baanu leenahay ma garat marka wallahi alxamdulillah weeyaan dad badan oo maaragtay hadii la sameeyo dawlad federaal la hadda la magacaabay oo laga gudbo ma state-ki kaliya Soomaali ahaan jirtay oo loo gudbay federalism oo ay ku socoto maxan ku raahaa maamul goboleedyada la sameeynayo waa okay weeyaan Ethiopia dariskeena maamul goboleedya ka jira inagu maamul goboleedyada waxaanu naqaanaa yaani waxun laakiin waxun ma ahan waa wax wanaagsan maamul goboleedyadu waana ma taqaanaa wax horumar lagu gaari karo oo de reer walba ama gobol walba Mareykankana joogo state walba asaga ismaamulo laakiin de sharciga uun baa lagu kala duwan yahay sharci hadii loo sameeyo oo la dhaho state walba wadooyinkiisa asaga dhisanaya booliiskiisa asaga yeelanaya saldhigyadiisa asaga yeelanaya electricitygiisa asaga yeelanaya maxaan ku raahay iskuuladiisa yaani wixii soo gala dawladdu ay dhahayso yaani percentage-kaas baan ku leeyahay percentage-kaas aan ka qaadaya waa wax loo baahan yahay oo macquula laakiin dawladdiina isla fahanto weeyaan yaani in maxaan ku raahaa la dhaho wixii 60kii jiray wixii 60kii maxaan ku raahaa dawlad lagu ahaayo wadanka ma taqaana lagu maamuli jiray ama sharci lagu maamuli jiray waa laga soo gudbay hadda federalism baa la qaatay dawladda federaalkaana waa inay waxay xaq u leedahay ay garataa oo maamulada u sheegtaa hadii ma taqaana sharciga aan la daadajin oo aan sharci la yeelin oo sharci loo sameeynin iyo kala dambeyn iyo nidaam state-ku wuxuu xaq u yeelanayo dawladda federaalka waxa xaq u yeelanayso waxaan ku raahaa waxa laga rabo dawladda federaalka inay sameeyto oo maamul goboleedka ama state-ka u qabato state-kana waxa laga rabo inuu dawladda federaalka uu geliyo oo dawladda federaalku xaq ugu leedahay yaani dawladda federaalka waa inay canshuurta wadanka soo gala ay intaas percent ay ku yeelataa 10% 20% wayna ku yeelataa oo bangiyada dawladda federaalka ay leedahay waa in loo dhaadhiciyaa maxaan ku raahaa maamul goboleedyada oo wax kasto oo canshuura oo dawladda maamul goboleedyada ama state-dadu ay qaadayaan waa inay hoos tagtaa dawladda federaalka oo dawladda federaalka dhahdaa waxana ismaamul goboleedkani sameeyay maadaama waxan maamul goboleedkani sameeyay intaas oo lacaga oo bil walba 3 bilood la loo xisaabtamo kadibna maxaan ku raahaa percentage-ka dawladda federaalka ay leedahay laga jaro markaas kadib 80% lagu celiyo maamul goboleedkaasna la dhaho waxa la idinka rabaa inaad sameeysiin oo inaad yeelatiin maxaan ku raahaa wadooyinkii idinku aad dhisatiin kow ina iskuuladii dhisatiin labo ina maxaan ku raahaa Allah waadan beerka beerin booliiska dhisatiin 3 maxaan ku raahaa caafimaadka 4 intaas ba inay sameystaan waa hadii kale because dawlad federaal waxa lagu noqdaa waxa weeyaan waxa iyagii anaga maamul hoosaad u yeelanayna oo maamulanayna wixii yaani ahayd aasigii laga rabay dawladnimo ee laga rabay maxaan ku raahaa dawladda taasoo in maamul goboleedki maadaama uu lacagti canshuur haday noqoto tii bariga haday noqoto tii maxaan ku raahaa dhul bixinta haday noqoto tii maxaan ku raahaa shatiga dukaamada iyo maxaan ku raahaa meheradaha haday noqoto maxaan ku raahaa mid kale adii isku soo duuduubo maamul kasta wixii soo gala ee state-kaasi qani ku yahay hadoo kale Puntland oo kale beer bay leedahay bad bay leedahay maxaan ku raahaa airport ay leedahay maxaan ku raahaa state-ka la dhaho maxaan ku raahaa Hirshabeelle way ka fiicnaanaysaa Hirshabeelle wuxuu yeelanayaa asagu beero iyo webiyo uun baa wuxuu yeelanayaa xoolo
state kan la dhaho maxaan ku raahaa koonfur galbeed sidoo kale weeyaan oo waxay hirmanaysaa Hirshabeelle ag imanaysaa Kismaayo kale way ka duwanta Puntland oo kale noqon la mid noqonaysa dhaqaalaha soo galaya state kan la dhaho maxaan ku raahaa Galmudug sidoo kale bad bay leedahay tan kale laga hadlayo la leeyahay state kan loo magacaabayo Banaadir state Maraykan systemkiisa hadii la qaato oo sida Maraykanku u dhaqmo la sameeyo maxaan ku raahaa state ma noqon karto caasimadu because waxayna state u noqon karin hadda Ethiopia oo kale marka la fiiriyo Maraykan oo kale state maahan caasimada dawladda federaalka ay fadhida ay ka shaqeynayso dawladda federaalka waxa gudoomiye u ah madaxweynaha jooga meeshaas gudoomiye u soo magacaabaya maayar buu sameeynaya laakiin qofka maamulaya ee madaxweyne ka ah ee maxaan ku raahaa horumarkeeda haday wadooyin noqoto haday maxaan ku raahaa iskuulo noqoto haday cusbitaalo noqoto haday maxaan ku raahaa noqoto wixii u baahnaa nolosha aadanaha ee fadar dawlad looga baahnaa oo ma taqaanaa public utility waxay dhahaan marka la afka qalaad lagu dhaho waxaas oo dhan waxa looga baahan yahay dawladda federaalka marka inay u qabato caasimada ummadda Soomaaliyeed ee Muqdisho laakiin hadii la dhaho Muqdisho waa laga rarayaa oo degmo yaro kamid ama degmo yaro gobolka Banaadir ka tirsan oo meel gooniya ah baa laga dhigayaa caasimad yes markaas way noqon kartaa maamul goboleed gaarkiisa u taagan waana wax loo baahan yahay weeyaan hadii taa la sameeyo waa faa'iido soo korodhay because caasimada Muqdisho hadda saan u malaynayo kulli waa kortay way weynaatay waa magaalo waa gobol weyn dhaqaalaheeda kaliya ba ka badan bad New York ba Maraykan caasimadu ahaan jirtay kadibna waa laga wareejiyo ayadaaba ka magac weyn DC Washington DC meesha la dhaho marka maxaan ku raahaa kulli in la isqa qabsado oo ma taqaanaa siyaasi uu ku doodo haddaan saan la yeelin oo caasimad loo gobol maamul goboleed loo magacaabin ka madax banaan dawladda federaalka hadii dawladda federaalka xagee ku shaqeynaysa xagee fadhiisanaysa xagee tagaysa xagee wax ka qabanaysa marka waxyaalo badan baa loo baahan yahay in la isweydiiyo akhyaarta maxaan ku raahaa Facebookan waa Facebook cusub ummadda Soomaaliyeed buu ka dhaxeeyaa shanta Soomaaliyeed meel kasta joogan waxaana la dhahaa Somali Goga TV ma garatay nacalayd kulli waaye share-ta iyo subscribe-ka iyo maxaan ku raahaa like-ta ba hala saaro waxyaalo badan mowduucyo badan oo dhalinyarada u wanaagsan oo horumar ku jiro oo wanaag ku jiro oo de dawladda iyo dadka Soomaaliyeed ba waxaan ugu sheegayno wax ku barayno qofkii ma taqaanaa haya idea cusub iyo waxyaalo kale cusub oo lagu soo kordhin karana hadda waa loo baahan yahay waanu ka qaadanaynaa wixii macquul oo wanaagsan idinkuna de nala socda insha Allah bismillahil kariim maxaan ku raahaa baalkana share-ta iyo like-gaba la saaro de saasayno balana habeen walbana de insha Allah mowduucyo kale oo kala duwan baynu ka hadli doonaa insha Allah bismillah